okay waxaynu qaadanay trade kan waxa ku qaadanay break market structure sida ujeedaan suuqa wuxuu sameeyay high low halka waxa laga rabay high laga rabay Soomaan laakiin ma uusan sameeyay suuqan istiraatiijiyadan waa istiraatiijiyada kaliya ee suuqa 100% win ratio ku siinayso halkan waxa ka dhacay BMS maxaa laga soo gaabiyay breaking market structure soo suuqa soo ujeedaan level oo soo jabsaday ama order block ayuu hore u soo jabsaday halkan waxay ahayd order block ama OP waxa loo yaqaano order block waa meel suuqa laga celiyay oo shirkado ugu badan lacagaha ay ka soo qaataan halkan waxa la marka breaker block because waa la soo jibiyay meeshan markii la soo jibiyo waxa hubanti ah oo la shak ah suuqan hadii uu halkaas u imaado in suuqan sellers badan ay soo gali doonaan ilaa iyo halkan ay tagi doonaan maayelay mo sellers ayaan rajaynaynaa inay halkan soo galaan sababtuna wax kala maahan waxa waaye institutionka marketka qaabku u sameeysan yahay ayaan raacinaa because suuqan waxa uu ku soo jiray uptrend uu ku soo jiray hadda marka waxa laga rajaynayaa suuqan inuu noqdo low high inuu sameeyo halkan waxay ahayd 50% line oo suuqu la rabay inay imaadaan laakiin at least meeshan way jabsanay maxaa yeelay break market structure ayaa halkan ka dhacay wadna arki doontaan insha Allah sidan ayaan u trade gareeya waana trade oo 100% win insha Allah soo jeedno suuqan hadda buyers xoogana soo galay laakiin buyers kaas meesha u socdaana idin tusi doona insha Allah daqiiqada kadib aan waxa isla joogno sababta ay u imaadeen buyers kan xoogan ayaa waxay tahay only one shardi dad badan aan rabaa in lagu qasaariyo maxaa yeelay halkan soo jeedno waa order block Soomaan order block waa bullish order block صح bullish order block gan markii la gaaro haddana sellers xoogana suuqan soo gali doona insha Allah daqiiqadaha soo socda soo jeedaan projection lagu soo sameeyo dad badan waxa lagu rabaa in manipulation lagu sameeyo manipulation kaas wax kale ma ka rabaan waxay rabaan inay lacagtaadii adigi qasaariyaan hadda suuqan dada buy ugu jiro isdhahayaan buy aada soo adisi mararka qaar waa arkaysaa daqiiqadaha ugu dambeeya inaa qasaaraysid daqiiqad u dambaysa aad isdhiist waa guuleysatay markaas waxa imaanay emotion wow suuqi lacagtaadii dhan hal mar gubaysan soo dib malahan muhiimadda waxay tahay in aad sacrifice asameysid oo wax walbo lagu codcodiyo maalin waxay ku noqonayaan maalin cajiib ah sidan kale waxa ku sheegay istiraatiijiyadan 95% waa win ratio macnaha 5% ya loss 5% gaasna wax kala maahan waa suuqu hadii uu galo consolidation amis kale adiga direction ka uu qaldan yahay labadaas waxaan ka ahayn inta kale waa win ratio waay soo qaladkaaga hadii uu bato labas waa saxaysa mar walba ku codcoli ka niyajibin dheema account ortorku ku soo trade garay dheemaha وبعدين ريالك إما ريالكنا سيدي دي ما أو استعمالي عملوا استعمال وهو إنا قول غير دون إن شاء الله أنا كان كل هذا لايو وحاسنا مع سومري حدني استيل وكتريد قرية مرة قاربة محايلة إيموشن كمر والبا إن تجسد أي مهم جدا ولا ريال هذا نبنو سوقا إن هرمر أنك قارنو وإن ساكريفايس أسمينا ضد بدنا عشان سنة اللي حسنا سوقا أكفديان استيلنا هذا أنا نقول قاعدين لكن وحاول دوّن هاي وعينا sacrifice في عنا الله إيمانه